waxaana wanaagsan daawadayaal meel walba oo caalamka joogtaan waa mar kale barnaamijkeeni wararka isha sirdoonka oo aan ku soo qaadanayno qaybtii saddexaad ee afgambigii dhicisoobay ee dalka Turkiga u diyaar garooba barnaamijka oo fidsan. Hakan Fidan waa agaasimaha sirdoonka qaranka Turkiga oo ah nin aan aad loo fahmin oo ay saaxiibo dhow yihiin madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. waxa aanay horeba warbaahinta iyo dadka Turkiga ugu bixiyeen naanaysyo badan oo dhammaantood muujinaya xiriirka adag ee uu la leeyahay madaxweyne Erdogan. waxaana kamid ah naanaysihaasi waardiyaha sirta Erdogan, daljirka daahsoon, dacawga Turkiga, gacanta birta ah ee Erdogan, jaydalka Erdogan iyo sida mararka qaarkood ay dadka Turkigu u xaman jireen mindida. magacyadaasi oo kii la qaataba run noqonayo marka loo eego go'aanka uu ka qaatay afgambigii fashilmay iyo daacadnimadii uu ku garab istaagay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. haddii uu General Downdar ahaa ninka badbaadiyay nolosha Erdogan ee sababta u ahaa in uu daqiiqado yar ku weydaarto ciidankii ku dili lahaa degmada Marmaris, General Hakan Fidan isaguna waxa uu noqonayaa ninka badbaadiyay kursiga Erdogan kuna dhiirigeliyay madaxweynaha in la iska difaaco kooxda afgambiga waday. Hakan Fidan habeenkaasi shaqadiisu kuma aysan koobnayn kaliya qorsheynta iyo fulinta howlgallada sirdoon oo fashilinayay afgambiga, balse waxa uu sidoo kale buuxiyay kaalinta la taliyanimo ee madaxweyne Erdogan oo xitaa arrimaha siyaasadda la xiriirta kala talinayay, taas oo ay ka mid ahayd taladii uu madaxweynaha siiyay ee ahayd in uu bulshada istuso oo aanu meel qarsoodi ah uun ku gaban si aanay maqnaanshihiisa uga faa'iideysan kooxda afgambiga waday. mudane madaxweyne waa aanu la dagaalamaynaa ilaa kaayaga ugu dambeeya uu ka dhimanayo, adigu bax oo shaaraca tag ayaa ka mid ahayd taladii uu habeenkaasi Hakan Fidan uu siiyay madaxweyne Erdogan. waxa uu madaxweynaha kula taliyay in uu la joogo dadkiisa dibadbaxa ku difaacaya ee wadooyinka Istanbul taagna. waxa aanu hadal ugu soo koobay adigu la joog shacabkaaga, waana sababta tan iyo wixii ka dambeeyay isku dayga afgambigii fashilmay warbaahinta dalka Turkigu naanaysihii hore ugu soo kordhisay mid cusub oo ah samata bixintii Erdogan. haddii aynu wax taariikh nololeedkiisa ku hakanno, Hakan Fidan ama Hakan Fidan waxa uu sanadkii 1968 ku dhashay magaalada caasimadda Ankara. waxa uu ka baxay akademiyada dagaalka ee dhulka sanadku markuu ahaa 1986 xilli uu howlo dawladiisu leedahay u joogay dalka Mareykanka. waxa uu uga faa'iideystay in uu shahaadada koobaad ee bachelorka uu cilmiga siyaasadda iyo maareynta ah ka qaato jaamacadda Maryland intii u dhaxaysay sanadku markuu ah 1986 iyo sanadkii 2001. waxa uu ka shaqeeyay cutubyada falcelinta degdega ah ee isbahaysiga gaashaanbuurta NATO. sida oo kale waxa uu la soo shaqeeyay NATO laanteeda ururinta xogaha degdega ah oo xarunteedu tahay dalka Jarmalka. jaamacadda Bilkent ee dalka Turkiga ayaa uu ka qaatay shahaadada labaad ee masterka oo ah cilmiga xiriirka caalamiga ah ama international relationship. jaamacadaasi ayaa uu ka diyaariyay shahaadada ugu sareysa. isaga oo wali waxbarashadiisa sii watana waxa uu daraasado sare oo kala duwan iyo machadyo kala duwan ka qaatay waxbarasho oo uu ka mid yahay machadka daraasaadka qaramada midoobay ee hubka dhigista. Hakan Fidan shaqooyinka ka baxsan militariga iyo sirdoonka ee uu soo qabtay waxaa ka mid ah la taliyaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ee safaaradda Turkigu ku leeyahay Australia. sanadkii 2003 oo uu madax ka noqday hay'adda horumarinta iyo iskaashiga ee Turkiga, la taliyaha wasiirka arrimaha dibadda ee arrimaha amniga caalamiga ah iyo siyaasadda dibadda, la taliyaha ra'iisul wasaaraha iyo markii dambe oo sanadkii 2007 loo doortay xubin ka mid ah golaha fulinta ee wakaaladda tamarta atomikada ee caalamiga ah. Hakan Fidan sanadkii 2009 ayaa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan u magacaabay ku-xigeenka taliyaha guud ee sirdoonka Turkiga oo lagu magacaabo MIT. sanad kadib waxa howlgab noqday taliyihiisi, taas oo fursad u siisay in Hakan uu markaasi ay da'diisu ahayd 42 sano uu madaxweyne Erdogan u dallacsiiyay agaasimaha wakaaladda sirdoonka Turkiga ee MIT. magacaabista Hakan Fidan kula wareegay sirdoonka Turkiga waxa ay si aad ah uga careysiisay Israa'iil iyo Mareykanka oo xasuusnaa sida adag ee uu Hakan uga soo horjeeday qaabka uu ahaa iskaashiga
uu sirdoonka Turkigu la lahaa wakaaladda sirdoonka Israa'iil ee Mossad. Hakan oo u arkay in dalkiisa lagu duleystay xiriirka sirdoonkiisu ay la leeyihiin sirdoonka Mossad. Xiriirka sirdoonka Turkiga ee MIT iyo midka Israa'iil ee Mossad waa uu soo jiray tan iyo sanadkii 1958 waxaase uu halkii ugu sareysay gaaray bilowgii sagaashamaadkii oo uu gaaray heerka lagu magacaabo iskaashi istiraatiijiyadeed. heshiisyadii ay markaasi labada dhinac wada galeenna waxa ay Mossad fursad u siisay in ay si fiican basaasiin uga dhex shaqayn karaan gudaha Turkiga. Arrintaas iyo guud ahaan qaabka wada shaqayntu u taalay ayaa waxa uu Hakan Fidan u arkayay in aanay si sax ah dano isdhaafsiga labada dhinac isugu dheelitirnaynin, mana aanu qarsan jirin sida aanu uga raali ahayn. Laakiin Israa'iil bilowgii markii Hakan noqday taliye xigeenka MIT ee sirdoonka Turkiga muhiimad ma aysan siinin oo waxa ay ku ekaatay in ay labada dhinac u dhaafto Hakan dhinaca sare oo ay la shaqaynaysay taliyihiisa oo ahaa ragga Israa'iil ku lahayday Turkiga iyo dhinaca hoose oo ay si toos ah ula shaqaynaysay saraakiisha sirdoonka ee ka hooseysa, kuwaas oo ay xiriir toos ah iyo mid qarsoodi ahba la sameynaysay. Markii Hakan Fidan xilka loo magacaabayna habdhaqankaasi ayaa ay sii waday Israa'iil oo haddii talihii ay weyday waxa ay xiriirkeeda u soo leexisay dhinaca mas'uuliyiinta iyo saraakiisha sirdoonka ee ay aaminsanayd. Sidaa awgeed ragga ka hooseeya Hakan ayuunba ay la shaqaynaysay. Hakan, Israa'iil iyo Mareykanka sida in badan ka dhacda dunida soo koraysa, hogaamiyaal badan oo ka horeeyay Erdoganna looga bartay marka dal ka mid ah dalalka Turkiga la leh xiriirka istiraatiijiyadeed ee dhinaca ammaanka ah ama dhaqaalaha uu ka cawdo wada shaqayn ay la leeyihiin mid ka mid ah, si fudud ayaa markaaba mas'uulka laga soo cawday looga saari jiray talada hay-addaasi. Laakiin madaxweyne Erdogan waa uu noqon waayay saaxiibkaasi ay rabeen Israa'iil iyo Mareykanku. Waxa uu ku adkaystay in Hakan Fidan uu yahay shaqsiga ugu habboon ee uu xilkan u dhiibi karo. Arrintaas oo si aad ah uga caraysiisay Mareykanka oo ay xulafo dhow ahaayeen Turkiga iyo Israa'iil oo muddo xiriir fiican oo diblomaasiyadeed ka dhexeeyay. Cabashooyinka aanu Erdogan dheg jalaq u siin ee ka imaanayay labada dowladood waxaa ka mid ahaa iyaga oo cudurdaar ka dhiganaya waayo aragnimada ay u leeyihiin Hakan Fidan oo ka qayb geli jiray wadahadaladii sirta ahaa ee la xiriiray hubka nuclearka ee Iran iyo quwadda weyn iyo sidoo kale hay-adaha atomikada caalamiga ah. Xilligaas oo uu Hakan Fidan ka tirsanaa wakaaladda atomikada caalamiga ah, sida oo kalena ay barteen xilli uu qaybta ka ahaa wadahadaladii aan tooska ahayn ee sida qarsoodiga u dhex mari jiray Israa'iil iyo Suuriya, kuwaas oo uu Turkigu waday mar uu doonayay in uu labada dhinac heshiisiyo. Israa'iiliyiintu waxa ay ku doodayeen in waayo aragnimadaasi ay u leeyihiin Hakan Fidan ay ka soo arkeen in uu yahay nin kalgacal badan u haya Iran, sidaasi awgeed aanu ahayn ruux ay Israa'iil sirteeda ku aamini kari lahayd. Bilowgii hore markii xilkan loo magacaabayay Hakan Fidan waxa ay Israa'iil u haysatay in ay ku sii shaqaysan kari doonto xeeladiisa ahayd in shaqsiga iyaga diidan uun dhinac laga dhaafo oo canaasiir adag iyo saaxiibo daacad ah lagu dhex yeesho kuwa awoodda badan laakiin darajo ahaan ka hooseeya. Waana habka ay Israa'iil kula shaqayso dalal badan oo dunida ah oo u badan kuwa muslimiinta. Aaminsanaanta Israa'iil oo ahayd in fikirkaasi shaqaynayo ayaana sabab u ahayd in Ehud Olmert, ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil oo markii Hakan la magacaabayay ahaa wasiirka difaaca, mar waxaa laga weydiiyey aragtidiisa agaasimaha sirdoonka Turkiga loo magacaabay in uu erayo aflagaado u dhow ku tuuray. Waxa aanu ka baqaynaa in agaasimaha cusub ee sirdoonka Turkigu uu xogta aanu si weydaarsano u gudbiyo Iran. Sir badan oo aanu la leenahay ayaa uu og yahay. Waxa aana warwar nagu haya dareenka aanu ka qabno ee ah in ay suuragal tahay
in uu sirahaasi dalacsiyo Iran ayaa ka mid aheeday hadaladii ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Ehud Olmert. Israa'iil iyo Mareykanka oo xulafo dhow ah markii hore waxay u qaateen in cadaadiska noocan ah iyo cabashada tooska ah ee ay ka gudbiyeen Hakan Fidan ay madaxweyne Erdogan ugu dambeyn ku qasbi doonto in uu xilka ka qaado Hakan Fidan, laakiin sidaa ma ay noqon. Eedihii reer galbeedkuna waa ay sii socdeen oo xitaa waa kii wargeyska Wall Street Journal uu sanadkii 2012 qoray warbixin dheer oo uu ku daray Hakan Fidan waxa uu Iran ka caawiyay in ay dabagal ku samayso oo ay kharajiso shabakad basaasiin ah oo ay Mossad ku lahayd gudaha dalka Iran. Mar kale warbaahinta Turkiga ee u janjeerta dhinaca reer galbeedka ayaa qortay in Hakan Fidan uu Iran u gudbiyo xog xasaasi ah oo ay Israa'iil iyo Mareykanka sanadkii 2010 ka ururiyeen dalka Iran. Dagaalka Israa'iil iyo Mareykanka oo ay weheliyaan xulafadiisa reer galbeedka waa uu sii socday oo sanadkii 2015 wargeysyo reer galbeed ah ayaa faafinayay maqaalo taxane ah oo aragti taban ka bixinayay kaalinta uu Turkigu ku leeyahay guud ahaan gobolka uu ku yaalo ee Bariga Dhexe. Warbixinahaas iyo maqaaladaas oo qaarkood la sheegay in laga soo xiganayo ilo sirdoon oo reer galbeed ah iyo Israa'iiliyiin waxaa inta badan lagu dhex arkayay magaca Hakan Fidan oo ku soo noqnoqonaya kuna xiriirinaya arrimaha Turkiga lagu eedeeyay. Qaarkoodna waxa ay ku eedeeyeen in uu suuro geliyay xiriir dhex mara Islaamiyiinta xag jirka ah ee Suuriya ka dagaalama iyo Turkiga, isla markaana uu ka shaqeeyay qorshayaal ururadaasi awood aad u kordhisay. Waxa kale oo ay sheegeen in basaasiinta Israa'iiliyiin ah oo Turkiga qarsoodi uga dhex qabtay una dhiibay dalka Iran. Waa ay dhici kartaa in Hakan Fidan qudhiiso colaadda reer galbeedka ee Israa'iil mid la mid ah qaatay oo dhinaciisa uu dagaalka ka waday. Warbixino ay faafiyeen qaar ka mid ah shabakadaha wararka ee Turkiga waxaa lagu sheegay in Hakan uu dagaal basaasnimo oo baahalnimo ah ku qaaday sirdoonka Mareykanka ee CIA-da. Mas'uuliyiin Mareykan ah ayaa iyaguna qiray in labada sirdoon ee MIT iyo CIA kalsooni darro ka dhex jirto oo ay isbasaasaan. Mas'uuliyiinta qaarkoodna waxaa laga soo xigtay in Mareykanku basaasay Turkiga. intaas ayaan ku soo koobaynaa qaybtii afraad ee afgembiga dhicisoobay ee dalka Turkiga. Fadlan la soco qaybaha dambe.